صدح عنا مال كهر مدحوينها جمهورية الصومال مدن موسى بيحي عبدي وحا وعفس مدحوينه وفديي samafale cabdimaalik sheekh muuse caldoon oo ahaa samafale ka howlgala magaalada burco isla markaasna caawiya dadyowga baahan isla markaasna u baahan in la caawiyo haddaba waxaan ku sugannahay degmada qunto oo burco galbeed ka xigta waxaana markaasi ku sugan dadyow aad u fara badan oo ka yimid magaalada burco una taagan soo dhaweynta cabdimaalik sheekh muuse caldoon waxay lulayaan caleemo qoyan waxay tumayaan sacabo sidoo kale heesa iyo hawraar ay soo jeedinayaan taasoo ay markaasi ugu tala galeen soo dhaweynta cabdimaalik sheekh muuse caldoon شيخ موسى علدو soo dhaweyntiisa magaalada Burco bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore salaam ee ummadda islaamka meel kasta joogto waxaan ku faraxsanahay inaan mar labaad ku soo dhaweyno gobolka Togdheer samafale cabdimaalik muuse caldoon waan ku faraxsanahay inuu si khayr leh u soo baxayo oo maanta gobolkiisa nabad ku imanayo waxa ma hadda gaar ah waliba iskale mudane muuse biixi cabdi oo ka dambeeyay inuu soo baxo samafale ma santa walaalahay ما شاء الله دي أدوان فرحسنا مانتا من دائما بعد كصوب حنا مانتا بقى عيقنا أقبل محمد رابلي ولا الك عبد الملك مساعدهم حلاي كسر دو ولا القبل كاجي دت كاجي هو يضع حلاي welcome بالله شعب سو دويتها عبد الملك موسى علدون مقعد ولا لا أدوان دواي بقى واسمع سو دوينا مقعد فرق سو دوينا عبد الملك موسى علدون سو دوان لنا ولا ولا هذا ويري تي في سو دوان iyo soo dhaweynta cabdimaalik sheekh muuse caldoon iyo magaalada burco waan dhawahay walaal marka rasuul ku salaamay salaantiisa ku salaamay halkan waxaan u taaganaa ku soo dhaweynaya macallinkayga cabdillaah sheekh caldoon waan salaamay dhamaantiin عادل وحوي عادل سوى عدالة سري إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله inta kadib soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay samafale cabdimaalik sheekh muuse caldoon oo ahayd iyadu mid ku sunta qiimeyn halkii u sareysay isla markaasna ahayd madal kulmisay jamaahiir qurux badan isla markaasna si weyn u soo dhaweeyay samafalaha la wada jecel yahay waxaana bulshaweynta reer Burco oo iyagu kaga hortagay degmada Qoyta oo halkaasi uga soo jeediyay khudbad aad u qiimo badan waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa soo dhaweynta aad halkan igu soo dhaweyseen soo dhaweyntaas oo muuqaalkeedu ka tarjumayo inta ay leeg tahay heerka ay leeg tahay darajada ay tahay aad iyo aad baad idinku mahad celinayaa qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Burco oo aanan halkan ku magacaabi karin mid qof iyo dhinac iyo hay'ad dadkii reer Burco ayaa halkan igu soo dhaweynaya waad mahadsantihiin dhammaantiin waad mahadsantihiin habeen ay khamiisi soo gelayso
maanta oo kalena ay 17 bisha afraad ahayd oo ay noqonayso 18 bisha afraad 2019 ayaa wadadan horteena laygu qaaday gaari anigoo ka tiinadaysan waxaanan soo noqday anigoo gacmaha taagaya maanta gaari baan saarnaa waan xidhxidhnaa keligay baana leewatay maantana waxa weeye reer Burco oo dhan bay soo baxday waa guul xagga Rabbi ka timi markii ugu dambeysay magaalada Burco aan si nabada ku dhex maro waan idin xasuusinayaa waxay ahayd 13 bishii 12aad 2017 markaas ay ugu dambeysay si nabada ku dhex maro maantana ku xigta oo ay tahay bishu 11 bisha 6aad 2020 ما شاء الله فضلنا الله باله jeel baad igu ogeydeen xabsi baad igu ogeydeen aan muddo ku jiray xabsiga waxaan kala soo baxay faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan idiin sheegi doonaan kala soo baxay waana dareemi kartaan faa'iidooyinkan kala soo baxay inta aydan ogeyn waan idiin sheegi doonaa marka xabsiga kuma aan soo khasaarin faa'iidooyin baan kala soo baxay faa'iidooyinka ugu yar ee aan kala soo baxay inaan dhigana ay dadku ka faa'iideysan doonaan ku dhaxalifay jeelka inta ugu yar waa intaas caadil baa dhashay gadaashay caadil cabdimaalik sheekh muuse coldoon caadil waxaan ugu bixiyey inuu cadaalad sameeyo inuu cadaalad ku dhaqo qayrkii ayaan ugu bixiyey caadil shaygayna wada deeqa waa cadaalad taynu doonaynaa waa cadaalad maanta waa maalin farxadeed waxaan idinkula dardaarmayaa reer Burco reer Togdheer waxaan idinkula dardaarmayaa axad ama qof dhexdiina ayaan lagu dulmin haddii qofka aynu ogolaanno in dhexdeena lagu dulmo berri ka maalinaday ku imanaysaa aynu garab isiino aynu dhammaanteen aynu xaqa garab siino qofka iyo qabiilkiisa iyo midabkiisa iyo cidduu yahay ha u eegine u eeg qofkan xaq ma ku taagaya mise kuma taagna qofkan ma la dulmay mise lama dulmin weligiin aynu dhammaanteen qofka inaga mida aynu muxuu ahaayay garab siino haddii aynu garab siin weyno berri waxa weeye adiga wey haddii maanta aanad adiga ahayn ma berri baa tahay yaa xiga wey adaa xiga waxaan u mahad celinayaa waxaad halkan ku jooga sidaad u soo baxdeen waxaad tihiin dadkii intii aan xidhnaa garabka isiinayey mid duceeya mid wax qora mid si uun iigu heliya aanan ogayn ilaahay baa og ilaahay khayraad ku abaalmariyo ilaahay khayraad ku abaalmariyo waan idiin mahad celinayaa hargeysa waanigii markii maalintii aan ka soo baxay ee sara joogga laygu waraystay waanigii erayidhi wixii igu dhacay u qaadi maayo cidna kula xisaabtami maayo sidana laygu sameeyey oo waan kugula xisaabtamayaa ama colaad baan kugu samaynayaa ama waxa weeye waan kaa argoosanayaa waxa weeye bogga waan xidhay waxaanan furay bog cusub cutub cusub oo ka bilaabmaya taariikhdii aan soo baxay wixii waxaa ka dambeeya ayuun baynu ku xisaabtamaynaa aynu dhammaanteen tale iyo toosin ku yeelanaynaa micnaheedu waxa weeye aamusi mayno xaqa ka aamusi mayno weligaya ka aamusi mayno xaqii ka aamusi mayno se waxa weeye micnihii wixii dhacay ku xisaabtami mayno sidii nebi yuusuf calayhi salaam aanu walaaladii ugula xisaabtamin ayaan aniguna go'aansaday inaanan ugula xisaabtamin dadku waa walaaladay intaasaan ku soo gabagabaynayaa dhallinyarada munaasabaddan qabanqaabisay iyo dadka is abaabulay mar labaad jazaakumullahu khayr waxaynu yeelan doonaa munaasabado iyo madalo kale dee magaaladeedii baan idinka tegi maaye munaasabado iyo goobo kale oo aynu isku xog waraysanno ayaa jiraya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mubaarig weheliye waama TV magaalada Burco.